السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك السلام دمان بشمل سومالي ku dhaqan wadanka Jarmalka. Magacayga waa Ibrahim Isxaaq. Waxaan rabaa caawa inaan la wadaago fariin yar oo kooban aan ugu talagalay inaan bulshada Soomaalida ku dhaqan wadanka Jarmalka ugu faa'iideeyo. Fariintaas oo ku saabsan systemka wadanka Jarmalka ama Deutsche systemka wadanka Jarmalka waxa uu yahay iyo qaabka wadankan u shaqeeyo. كله waa muhiim dad badan waxa jira cusub oo wadanka soo galay iyo kuwa hore xataa u joogay laakiin aanan fahansaneyn systemka wadankan haday noqon xagga waxbarashada kale haday noqon lahayd systemka dawliga kale waa muhiim in aan wax badan arrintaas ka ogaano waana muhiim inta fahansan arrimahaas in ay walaalada inta kale aan fahansan ay gaarsiiyaan ama ay fahansiiyaan waa wax meesha ku jira wadanka ku nool yahay Jarmalka waa wadan weyn oo dhowr state milyan ay ku nool yihiin waa wadan 16 gobol ka kooban gobol walba wuxuu leeyahay shuruuc u gaar ah walow xarunta dhexe ay ku taalo dowladda dhexe magaalada Berlin oo xagga laga xukumo laakiin gobol walba wuxuu leeyahay caasimad u gaar ah systemkiisna waa u gaar gobolada waxaa loo kala maamulaa hab xisbiyeed oo xisbi walba gobol oo uu ku cod badan yahay oo ka taliyaa taas marka waxay keenaysaa in hab democracy ama dimuqraadiyad ahaan ay dadku u doortaan ay rabaan qofka ay xisbiga ay rabaan ay soo saaraan kadib markaas ay ku guuleystaan wadankan waa saan hore ku sheegay waa wadan weyn systemadiisuna iska badan yihiin dhanka systemka dowladnimada oo kale ama systemka dawliga oo kale waxaa arkaysaa wadankan shuruuc badan oo leeyahay matalan sharciga wadankan oo ka jira oo aan isbedelin oo haddii noqoto inuu isbedelan ay tahay inay ka fadhiistaan xarunta ama baarlamaanka ka fadhiistaan oo kale waa Grundgesetz waana sharciga wadankan lagu hago ama lagu dhaqo waana sharciga meel walba ka shaqeeya gobol walba oo Jarmalka ka tirsan ama meel walba Jarmalka ka tirsan ilaa tuulo waxaa kaloo jira sharci qaxootiga loogu talagalay kaas marka waxaa dhacda badanaa inuu isbedelo waxaana keeni kara wax kale ma ahan maadaama systemka qaxootiga uu yahay marba ka dambeyso mid sii bedelayo dhowrkii sano ugu dambeysay wadamada Yurub ama European Union waxyaabo badan xagga qaxootiga kale ay ka bedeleen taasoo ay keentay ama ay saameynteeda ay keentay wixii ka dambeeyay 2015 oo qaarada Yurub ay soo galeen qaxooti Suuriyan aad u fara badan ka hor 2015 wadankan qaxooti badan ma soo galin Soomaali badan way jirtay soo gashay oo Soomaali ugu badneed oo wadanka soo gashay soo galay 2015 wixii ka dambeeyay ha u kala badnaadaan gobolada sida Bayer oo kale iyo gobolka Andigan oo kale Hessen iyo gobolka Nordrhein-Westfalen markuu qofku wadanka ku cusub yahay oo magaalada doon uu yahay oo rabo wadanka inuu ku noolaado maadaama wadankiisu ka soo cararay waxaa dhacaysa marka hore qofka in la geeyo dhahayaan Erste Aufnahme Einrichtung oo ah meel dadka marka hore lagu kala saaro oo qofkii identiteedkiisa qofkii lagu xaqiijiyo si qofkii loo ogaado in uu qofkaasi yahay waxa uu sheeganaya in sax tahay kadib markaasna qofka meesha interview looga qaado markaas kadib ay noqoto in loo gudbiyo kaamka caadiga ah oo normalka ah oo dadka markii la soo checking gareeyo kadib la geeyo qofkii markii dadka wuxuu kala baxaan laba nooc dadna waa dad wadankan dadna waa dad sida toos Yurub ugu imaaday oo wadankan soo gala oo dadna waa dad wadamo kale Yurub soo maray sida Talyaaniga oo kale Malta oo kale Greek oo kale iyo wadamo kale Yurub ka tirsan sida Yurub bari oo kale Romania iyo meelahaas oo kale qofka markuu san fara lahayn oo kale badanaa waxaa dhacay qofka interview laga qaado interview natarkiisa qaab loo qaadaa jirto waana muhiim in qofka intuu interview maray ka hor la fahansiiyo hay'ado waxaa jira arrimahaas aad ugu shaqeeyo sida Caritas oo kale Diakonig oo kale oo qofkii ka caawiya sida ugu fudud oo qofka interviewgiisa uu ku dhisi karo taasna marka waxay keenaysaa inuu qofka dhowdi markuu interview u soo maray kadib uu ka helo hay'adda u qaabilsan arrimaha qaxootiga wadanka Jarmalka ee BAMF positive marka waa muhiim in dadka hadda walaalaha cusub ee wadanka Jarmalka soo galay in ay hay'adaha la xiriiraan kadib ay ogaadaan systemada loo maro interviewada kale qofka markii uusan fara lahayn saad hore ugu sheegay qofka waxaa la sameeyaa interview laga qaado qofka interview waa laba nooc ama saddex qaybood u kala baxaa kow waa qofka dad daatadiisa qofka in marka hore la weydiiyo uu ka jawaabo مثلا لو كل قفكم مجيسو كلام ماشو كل شيء هذا فاميلي هاي يعني ما عرفت إيش المحور هاي يعني باكرون اللي يخافك إنه كله وكوب
tan labaad waxay tahay qofka sababta kasoo wada wadankiisa waa inuu qofka uu maaragtay uu caddeeyaa uu qeexaa uu u sheegaa maaragtay qolooyinka interviewka qaadaya oo kale sababta dadka uu soo tagay waa inuu yani reason ama rasmi u sheegtaa ama grunta rasmi qofka u sheegtaa qaybta saddexaad ugu dambeysa oo maaragtay interview lagu soo gabagabeynayo waxaa waaye haddii lacala wadanka lagugu celiyo kale maxay tahay dhibaatada kala kulmi karto kale marka interview sidiisaba jarmalka la qaado ay qaadaan yani maaragtay hay-ad u qaabilsan maaragtay arrimaha qaxootiga ee banf waa saddexdaas qaybood u kala baxaa marka waa daatadaada lagu weydiinayo iyo marka labaad lagu weydiinayo sababta usata wadankaaga iyo marka saddexaad lagu weydiinayo haddii lacala wadanka lagugu celiyo kale maxaa yani dhibaato kala kulmaysaa marka taasi marka waxay ku xiran tahay qof walbo xaaladda uu soo maray iyo maaragtay systemka uu wadanka ugu soo tagay iyo qaabka uu sharxi lahaa matalan waxaa laga yaabaa qofkaas waa qofka yani maaragtay shar muxuu ahay oo sharciga maaragtay qofka waa qofka aan faraha lahayn oo kale tan qofka faraha lahayn usoo laaban doonaa oo waxaan ka hadli doonaa qaybta labaad matalan qofkaas oo kale waxaa laga yaabaa in maaragtay interviewgiis waxaa loo gudbinayaa qolooyin experti ah oo maaragtay arrimaha qaxootiga maaragtay aad ugu dhundareelo lana socdaan xaaladda dhaqaaqa ay maaragtay wadamada ay dadkaas ka imaadeen waxay noqonaysaa in interviewga la fiiriyo kadibna maaragtay isheeg muxuu ahay wax la dhahay ab ishtimal la sameeyo loo codeeyo kadibna maaragtay isheeg muxuu ahay la fiiriyo qof walba waxa uu isleeyahay qofkan uu qalmaa kale waxaa lasoo qaadaya interview laga qaado la complete miiska lasoo saaray waxaa leeyahay qofkaas oo meesha ka imaaday wuxuu noo sheegtay dhibaatada noocaas muxuu u qalmaa qofkan complete in la siin fahanteen yani qofkan muxuu u qalmaa in la siin markaas sida loo codbato kale markaas noqonaysaa in maaragtay in markaas sharciga lagu siiyo waxaa laga yaabaa in lagu siiyo sharciga propass ama sharciga bluega loo yaqaano waxaa laga yaabaa in lagu siiyo gropass oo kale waxaa laga yaabaa in sharci kale lagu siiyo kale marka qofka marka ishak muxuu ahay sistema noocaas oo kale maraya matalan kale qofka waxaa laga yaabaa in diidmo la siiyo kale kasoo qaata waxaa la dhahay interviewga aad marto kale maaragtay uma qalan maaragtay sharci lagu siiyo kale qofka waxaa u furan mar kale inuu maaragtay abil qabsado oo maaragtay uu la xiriiro maaragtay lawyerkiisa oo u sheego kadib maaragtay haddana antaraaka la xareeyo qodob lagu celiyo haddii mar labaad ay soo diidaan yani waa labo mar saddexaad yani jaanis badan ma jiro oo qolada maaragtay lagu celinayo markaas kadib qofka waxaa u furan maaragtay labo meelood oo qofka wax ku heli karo kow waa maaragtay maxkamadda oo maaragtay ishag muxuu ahay uu lawyer xaq u leeyahay in uu mar kale qofkaas uu maaragtay kiiskiisa u gudbiyo haddii maxkamadda la waayana waxaa kale qofka uu xaq u yeelan karo osanda board oo kale ama immigration magaalada ku yaalo kale qofkaas yani wax uu siin karaa laakiin badanaa waxaa dhacda in maxkamadda ay dadka maaragtay sharciga siiso kale marka maxkamadda marka sharciga ay bixisa maxaa kamid oo kale waa muhiim inaan maaragtay ishag muxuu ogaano maxkamadda sharciyada waxay bixisaa badanaa ay dhahayaan abshebugsverboten yani abshebugsverbot yani waa wax yani qofkan lama celinayo kale qofkan wadankan ku noolaanaya qofkan wadankan maaragtay ishag muxuu ahay uu degnaanaya waaye yani waa sharci oo qofkaas yani aan maaragtay ka ilaalinayo qofkaas in lagu celiyo wadankiisa yani ama meeshuu ka imaado faraha kula kale ama meesha yani ishag muxuu ahay inkastoo aan rabo inaan toodkaas si gaar uga hadlo waa muhiim marka inuu qofka fahmo waxaa kaloo jirto qofka markuu fare leeyahay kale waxaa laga yaabaa qofka markasta qofka markuu imaado waxaa laga qaada waxaa dhahay finger updrop yani waxaa la baaraya qofka daatiisa oo kale dublin mafahanta yani markii la baaro daatadiisa qofka haddii uusan qofka fare lahayn oo kale saacadda sheego systemkaasuu maraya haddii uu fare leeyahay xataa isla systemkaasuu maraya laakiin waxaa dhacayso qofkaas mar alle marka interview laga qaado isla markiiba qofkaas in loo sheego ama interview aan laga qaadan ama loo sheego dhaho waxaa ka imaata waddan noocaas waa inaa waddankaas ku laabataa sida uu dhaqsi badan waxaa laga yaabaa inay go-aan kasoo saarta maaragtay hay-adda maaragtay ishag u qaabilsan arrimaha qaxootiga kale ay dhahdo ishag muxuu ahay kiiskaaga waxaan ogaanay inaad waddan hebel ka imaatay waa in waddankaas lagu celiya oo kale taas marka waxay keenaysaa qofkii marka inuu jaanis kala raadiyo oo wax uu ku heli karo saa hadda hore kuu sheegay 15 wixii ka horreeya oo kale waxaa dhici jirtay ama ilaa hadda way jirtaa laakiin sida hore uma badno matalan qofka inuu maaragtay uu meel walba maro oo kale ama dhakhtar u tago oo kale oo xanuuna iyo maaragtay waxyaabo oo maaragtay qofkaas yani shakhsiyan soo saameysay inta maaragtay qofka uu soo maaragtay soo hajirayo oo kale inuu sheegto oo kale laga yaabo in shaqo lagu siiyo ama waxaa dhici jirta waxay dhahaan oo kale azul kirsho oo kale qofka inuu meel kiniisad oo kale maaragtay uu tago kale uu dhaho maaragtay shaq muxuu ahaa dhibaatooyin noocaas ay haysto in laga yaabaa marka waxaa u baahanaya inaad i caawisaan marka ayagana waxaa laga yaabaa in meel ku geeyaan kiniisad ah kiniisada gudaha lagu midkeen laakiin waxaa lagu geenaya meel qol ah oo isla qaybta kiniisada ama kimaandad ka tirsan qofka meesha lagu haynaa ilaa iyo muddo ilaa kiiskiis qofka oo maaragtay meel laga saaray kadib waxaa laga yaabaa markaas ama badnaa dhacday inta hadda kulli aniga aan ka warqabo in sharci qof la siiyo weliba la siiyo sharciyada qaxootiga ama sharciyada garoobaas oo kale marka waa muhiim in maaragtay ishag muxuu ahay mar walbo aad maaragtay arrimahaas la socoto si aad u ogaato yani waxaa xaq u leedahay waxaadan xaq u lahayn
sharcigan qaxootiga saan maaragtay hore kuu sheegay waa sharci mar walba isbedelo sanadka hore waxaa ku ogeyd waxaan wax kala sii bedelayo waayo waa sharci aan fadhinin waa complete sharci fadhiya ma ahan marka waa muhiim marka ishag muxuu ahaa in ay maaragtay dadka walaalaha cusub ee waddanka soo galayo inay aada uga taxadiraan in ay maaragtay ishag muxuu ahay ay wax walba maaragtay ay samayn karaan isleeyihiin sharci kulli kartaa oo maaragtay dadaala inay sameeyaan meelaha hadda usoo tilmaamo kale inay tagaan oo maaragtay ila xiriiraan si maaragtay interview loogu dhiso interview qurux badan oo maaragtay ay meesha ula tagaan haddii ilaah la ka dhigo waxaa kaloo jirta qofka markuu cusub yahay oo kale waqtiyada hore waxaa jirta oo kale inaan qofka la ogolan luqad inuu barto oo kale laakiin hadda waa ka duwan tahay qofka waxaa la ogolyahay hadda maanta inuu luqad barto asoona sharci haysan xitaa waxaa la ogolyahay xataa asoo sharci haysan hata inuu osbil loo sameeyo ama xirfad sameeyo marka waa jaanisyo ka duwan jaanisyada hore dadka yani noocaas aysan haysan marka waa muhiim in maaragtay qofka xataa uu wax barta xataa markuu qof wax barta xataa oo luqadda uu meel sare ka gaaro kale waxaa dhici karta qofka in sharci lagu siiyo kale haddii marka hore loo diidanaa sharci la siiyo marka waa muhiim istabiil aan soo sheego dhan in uu qofkii hadda ku jiro howlahaas oo kale matalan oo kale ama hadda ay maaragtay arrintaas ay maaragtay ay saameyso kale haddii uu talada qaato waxaa dhici karta in 100% ama 99% uu ku guuleysto haddii ay case aad leedahay su-aal u baahan tahay ku saabsan arrimahaas waa isoo weydiin kartaa telefonkeyga meesha ku qoran yahay maaragtay facebookkeyga pagekeyga emailkeygana insha allah soo qori doonaa ama waxaad usoo kartaa messengerkeyga waa muhiim marka in aan mar walba interviewga oo noqdo interview lagu qanci karo oo qolooyinka ishag muxuu ahay maaragtay sharciyada bixiya ay ku qancaan tan kale oo maaragtay aan rab inaan ka hadlo waxaa waaye systemka waxbarashada ee waddankan marka qofka horta tuulo la geeyo waa iska dhib badan taha oo system badan maaragtay qofka information badan ma helayo laakiin waxaa muhiim ah qofka inuu markuu cusub yahay xataa uu raadiyo hadda sidoo hore waaga jarmalka soo geli jiro kale saan ma ahayn maanta waxaa helaysaa walaalo badan oo maaragtay information badan ku siiyo kale laakiin waagi hore oo kale waa iska adkaysaa information ku hesho fadlan isku day inaad ka faa'iidaysto waddanka inta aad joogto mar alla marka waddanka aad soo gasho oo aad ogaato waddanka in maaragtay isha muxuu aad ka heshay yani maaragtay geliyo inaad waddanka ku noolaato aad xaqiijisato waxaa muhiim ah in aad waddankan aad wax barato waxbarashada waa shay kaliya oo furaha waddankan ku ah waa kow waa inuu qofka horta luqadda bartaa luqadda marka aad barato oo waddankan systemkiisa aad fahanto waxaa kuu sahlaanayso in aad wax badan aad gaarto oo aadan maaragtay gaari lahayn marka waxbarashada waa midda kaliya oo qofka uu maaragtay horumar ku gaari karo ha noqoto xirfad ha noqoto jaamacad qofka inuu dhigto taasna waxaa lagu gaarayaa ishag muxuu ahay sabar iyo dulqaad badan waayo waddankan qofku wax baranaayo culays badan la kulmaaya marka culaysaas hadduu ka gudbo ama end yani ama ugu dambeyntii qofkaas wuxuu noqonayaa qof maaragtay guuleystoo kale oo maaragtay ishag muxuu ahay hadafkii uu lahaa oo gaaro oo kale marka ama xirfad baro ama ishag muxuu ahay ama waxbarashada maaragtay jaamacadeed dhigo waa muhiim intaa waddanka ku sugan tahay in aad ka faa'iidaysto oo ay jaaniskaas maaragtay uusan maaragtay ku dhaafin tan ugu horeysa ugu muhiimsanna waa maaragtay luuqadda waayo luuqadda waa furaha waddankan haddii aad luuqadda barato wax badan kuu fududaanayo waxaa ogaanaysaa waddankan systemka u shaqeeyo waxaa ogaanaysaa يعني باهية فرح بدن أنا دبول نسا وحد عاونة تذكر ولا لها أو دبن مركز سكوتي فضلا وطن كان تكونوا شيئا اللقطة برضو أو اللقطة ما عرفت إيش المها أي نقطة متكو أنفع له وذكر يعني أنفع له مثلا لو كانوا برشلونة لو كان وطن كان ودور سيستمي واي مثلا ياك وطن كان كانوا كله marka waxaa laga in la geeyo kale daad ku xiran tahay kale in ground school la geeyo kale laga yaabaa kadib maaragtay in hoob school la geeyo kale waxaa laga yaabaa in real school la geeyo kale gymnasium oo kale kadib markaas abito qofka la geeyo kale marka waa muhiim in waalidiinta raba inaan arrinta kala hadlo waa muhiim in ciyaalka ka warqabto waxbarashadooda yani marka kula ciyaalka waxbarashada aan ka warqabto waxaa waaye cunuga markii la soo siiyo hoos of gam yani kala shaqeeya haddii aad aqoonteeda leedahay haddii aadan lahayn isku day fadlan cunugaaga inaad mar walba tagtaa maaragtay marka waalidiinta loo waco iskuulka oo kale waayo macaan walba wuxuu ku sheegayaa informationkaas in cunugaaga meelaha uu ku liito meelaha uu ku fiican yahay kadib markaas waxaa xaq u leedahay inaad maaragtay ishag muxuu ahay aad naqli fucala cunuga u samayso oo cunuga ugu caayo waxaan ka bixinaa ishtarka aad diganta oo kale madan oo kale waxaa laga yaabaa cunuga mathematics oo kale inuu ku liito waxaa laga yaabaa kala dooj oo kale inuu cunuga u liito qoraalkiisa oo kale waxaasoo dhan waa laga dhisayaa laakiin haddiisan waalidka isan ogeyn cunugooda meesha uu ku liito iyo meesha uu ku fiican yahay waa dhibaato cunugaas waxaa laga yaabaa inuusan hobsula uusan dhaafin oo kadibna ay noqoto cunug ilo laaga kusoo aruuro marka waa muhiim in aan arrintaas dhammaan aan u wada istaagno waalid walba uu cunugiisa ka warqabo uu waxbarashadiisa ku kontroolo maanta cashirka soo siiyo uu ogaado uu ka daba tago oo maaragtay ishag muxuu ahay uu maaragtay ka caawiyo haddii uusan ka caawin karin saan sheegay in meelaha dadka lagu caawiyo kale la geeyo waayo waxaa dhacaysa haddii kale inuusan cunuga horumar badan uusan waxbarashada ka gaarin oo xataa marka dambe xataa ay noqoto heer uu gaaro inuu naaco iskuulka oo kale waxaan u sabab ah markii maadooyinka qaar ay ku adkaadaan marka fadlan ciyaalka aan dhalayno ama ciyaalka meesha aan ku haysano aan ka taxadirno
qof waalid walbana arrinta mas'uuliyad ka saaro mushkilad kale oo weyn wax kale ma ahan مثلا لو كان حاليا بقى in waalidiinta loo waco kale loo iskuulka imaada waxaa jira maaragtay wada sheekeysi oo xagga macallimiinta iyo maaragtay waalidka oo kale badanaa waalidka qaar ma tagaan oo kale taasna marka culays keenaysaa waayo meesha lagaa siinaa warbixinta cunugaaga haddaadan tegin waa dhibaato marka muhiim waaye in aad maaragtay cunugaaga mar walba ka warqabto oo waxbarashada aad ku kontrolsho waxaana muhiim ah in aan helno Soomaali badan oo wadankan degan waxbarata ciyaalka waxbarteen oo heer fiican wadankan ka gaaray hadii noqon dhanka siyaasadda oo kale hadii noqon dhanka arrimaha bulshada oo kale hadii noqon dhanka caafimaadka oo kale waa muhiim taasna insha Allah marka waxaan u maleynayaa video waa dheeray waana badiyay marka insha Allah muhiimadu waxay tahay marka video aan soo duubay in aan wax alla information asleeyahay walaalaha waa ku dhaantaa in aan idin soo gudbiyo hal arrin oo kala raba insha Allah inaan ku darsado intaan video aan soo gabagabeyn مثلا لو قفك مركي ورا عيالك لو كانوا كله وعارف سمي عن تراك إذا هاي فمين السلام فورو كله أوكي قف ممكن عن تراك أسوأ حرسته وحنعيك قفك واجه ورا كل حاجة تجي تقول قف ممكن شيء بلا باس كسيو كله يعني سدح بلود جود إنه حرسته هدي كله يكاد عضو وحنا اسمه قف قف إنه ما عرف إيش محو هاي والشقو بس أو كوكين فمين كوكله أما جود الدجا والشقو لو قد وحيابا نروح جنا قف لكن قف مركو ما عرف سدح بلود جود وحرسته كله وحشوده لما لهنا قف قالوا كينا عيالك أما حاليا وقف كلاسيو كان شيء من عادي نمذو كله سنة كسوة قرن واي شيء لواتن سدح شيء لواتن ما عرفت إيش شن أسيان إيش محو هاي إن وشقو كين وقصب قف كاسي ملهن وحجانس سدح بلود أما شن بلود ملهن وإنه شقو ممكن كين قف كاسي إنه جود الدقيقة هاي إنه ما عرفت قف كاسي ويا قف نوشيس ما عرفت كوفنا يوحى كلو جرو شيء لواتن لبو أو سيدا بلا باس كوكل وشقة شرع في الصباح لو كن لو يتمكي يسدح تمكي من الصباح كنو marka asina waa sida blow bus oo kale u shaqeynaya asina qofkii isha muxuu ahay badana waa lagu keenaa ciyaalka bilaa maaragtay bilaa buuq bilaa maaragtay mushkilad marka insha Allah mar alla markii aad sameeysan taraag oo kale oo aad ciyaalkii ay xaroodaan oo kale ay fiisaha maaragtay yani aan ka wada post shaft ama safaarada tagaan oo kale oo hooshooda maaragtay ay dhamaato oo kale waxaa muhiim ah mar walbo in aad kiiskaaga marka ugu horeyso aad kala socoto qodobka sanda boordaha حرام إن أردت حويرس عن طول استاجو مثل لو كلا أوتن بوردها يشجع محو أهاي يبانف يشجع محو سفارة وسدح إذا ما عرفت أنت هذا ما عرفت حوج إذا ما عرفت وذا جاي كوا أوتن بوردها هدي وقلاشو كسيو إن عيال لقو كين كروكلا أما نينك لقو كين كروكلا أما يعني نينك لو كين حاسك سكرة بقول كي بطلبات من جانس حاسس تعياكس لقو كين هاي كدب سفارة مركز يبانف وما عرفت قلنا بشايك أما شرعي قدرس سكرة يعني قف واحد لقوسي وكله أيجنا ما عرفت إيش محو هاي أيجنا قابل كله لكن قابت أو بدن سأل الشيء هو سفارة دوا أيوة وأصلا بوردا أما إميجريشن وكله مركب فضل سكوت ده إنه حلو وحي لجارة وكله أدو جيسو أصلا بوردا أي أدو يديسو مر على مركب كلها كيس كا وحقوق بدنا سفارة ده بس هاي اسمك وحاول أقول لك أيجا وعنك أي ما عرفت أي ما عرفت لاين ويجارين وين كود بيان مر قاقد وين كده هدو قف نكيا قف يعني كيس كا ما عرفت قابل سنة إنه كوش حتى مع السيد حول الحين وكله إنه كله وكله أنا كنا كنا أوكي إنه كان في ملك أقل لاي لكن مرة قصد حد عيس إنه سمع الجواب يستحقوسين ما دام ما عرفت أعرف اسمه أعرف قصد بقف إنه كوش شيء وأيو حقول لهم سنة كوش شيء يعني كيس كيقول للجود بيه كاسنا مرة إيش يجمعها حقول شقله وحكي دم بيه سفارة ده مرة حامي مقال حق جوكتم كاس إنه ما عرفت أجل حريرا في سهم مرة خفر صوصيو في سهم خفر صوصي يعني سدح بلاد marka wadanka soo galo saddex bilood gudaheed waxa qasab ah familka aad keentay inaad marka hore isha muxuu ahaa hadii aad sharci markaas ay haystay blow pass oo kale ama sharci buluug qaboojada haysto kale inaad wado aad geyso meelahaas ka dhiibo kale afar ka soo dhigto kale si ma aragtay ay u qaataan sharci haysto kale taasab boqol oo ma aragtay raajix ah ama ma aragtay muhiim ah qofku inuu sameeyo kale way dhici kartaa qofku inuu sameeyn oo fududeysto kale oo ma aragtay marka uu familka keeno kale isla markii uu geeyo usanda boordo kale وهذا بورد الشعب واسينايا لكن حدو أتكهان يسمركي إدتك ووينادان إن هدو حوير حجون إصابحان مركب فضل سكودي مرة كان في ملك أكين توكله إن هاد جيسو حرمت معرتي قحوتيجا إمارتي السكديبو سما عرت أو قبل كاجا سما عرتي شرع جالس لجوه حرايا ولوسي إن شاء الله وأنت أنا ربع عود إلى نلو ذاكو برنامج كنا نقدونا برنامج أسبوع لا أسبوع والبنا عايز يسكت بدونا برنامج عاد كده كدونتان عاد واحد بدنا كفاية دونتان إن شاء الله أنت أقوانتي وعندنا أنت لك إن شاء الله هذا الأمة أنت لمانتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.